gabadhan caruurtan isku dhigan ilaahay maqaadirtiisa ah ee laga keenay gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanka ka tirsan waxyaabaha adigu jahiyad ahaan aad dhahaysaan ama aad ugu tabarucaysaan inaa xaaladaas iyo gabdhaha sida yihiin aad u mahadsantahay SNTV na aad ay u mahadsantahay sida dhaqsida leh ay ugu soo jawaabtay in ay soo booqato caruurtan oo xaaladan rabbaaniga ay qabsatay oo labada madax leh sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamulka isbitaalka umma hay'adda Gift of the Givers ruuxantii waxay tahay hay'adda ugu horeysay ka soo jawaabta arintan xaaladan ruuxantiina waxaan wax ka wareysanay maamulka isbitaalka sida caafimaadkoodu yahay sida xaaladooda tahay ruuxantii annagana jawaab degdeg ayaan ka bixinay halkan waxaan maanta ugu deeqaynaa dharkii caruurtaas ay xiran lahaayeen muddo fog waliba sidoo kale caanihii ay cabi lahaayeen oo ayana sidoo kale muddo aan sidaas oo kalena u nafaqeyn doono mar walbana aan la socon doono xaaladooda caafimaad iyo marba marxaladaha ay marayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan mar walba ka war hayno oo la soconno oo mataqaana wixii karaankeena mar walbana aan jawaab ka bixino insha Allah marka saas ayaan rajaynaynaa maamulka guud ahaan isbitaalka iyo maamulka degmada iyo waliba dhammaan guud ahaan maamulka Gift of the Givers waxaan rajaynaynaa inay iskaashan doonaan aad u mahadsantiin gudoomiyaha fadhi waxaa ka hadashaa gudoomiyaha maadaama gudoomiyaha degmada tahay gabadhan oo laga keenay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo arintan muujisada ah caruurtan isku dhigan iyo degmaha xaajo waxaa qornay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah waxa weeyaan waa ilaahay awoodiisa iyo qudradiisa ka mid tahay wax oo soo jiran oo soo dhici jirna weeyaan marka anagu lama yaabeen awood ilaahay iyo qudrad ilaahay laakiin waxaan leenahay waa ilmo yar oo u baahan in lagu dadaalo la xanaaniyo u baahan waaye waxaan leenahay in ummadda muslimiinta ah inay wax alle waxay ka geysan karaan dal iyo dibadba wixii laga qaban karo ilmaha yararka ah in la caawiyo oo maamadaas gabadha yar ah ay aad iyo aad ugu baahan tahay in lagu taakuriyo la caawiyo u baahan tahay inaga haddaan isbitaalka umaya maanta ku soo booqanay isbitaalka ay yaalan hadda gurmad baa loo soo fidiyay dadka deegaanka ay u soo fidiyeen waxaana ku rajo weynahay hay'adaha ay qusayso arrintan ayada ah inay tallaabo ka qaadan doonaan waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliyeed inay ilmahan Soomaaliyeed oo caalamka waxba ka dhaca kamid ah inay u gargaarto oo la geeyo meel in lagu sameeyo caafimaad iyo xanaaneyn iyo haddii suurtagal noqonaysa haddii lagu sameyn karo operation oo laba qof haddii noqon karaan hadday suurtagal tahay in kulli dadaal in loo muujiyo anagu kama malaana waxaan ku baaqaynaa qof kasta inuu ogaado ilaahay awoodihiisa inay tahay ayna ahayn waxyaabo oo la yaab la mucjiza way tahay laakiin waa min mucjizaat ilaahi waa ilaahay awoodihiisa kamid tahay marka ilaahay awoodihiisana waa lagu mahadinayaa ma la dhahayo maxay u dhaceen marka waxaan leeyahay qof kasta waajiba ka saaran oo muwaadin Soomaalida awoodi kartana ama maamul ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama aqoon ha noqoto waajiba ka saaran baa leenahay marka cid kasta waxaan ka codsanaynaa arrintaas waxay ka qaban kartaa qabato Этот больной, который мы посмотрели, очень сложный. Это заболевание с рождения, которое, значит, очень трудное. У этого больного есть, мы обследовали его мы обследовали. Там, короче, у него 3 почки, 2 сердца у него, 1 печень показывает на ультразвук и сращение костей. Очень сложная патология, которая редко встречается, и для него надо очень сложная операция нужна ему для разделения вот их.
И таких возможностей здесь нету. Его надо отправлять за рубежом. Хорошая клиника для таких больных есть в Германии, которые там они могут провести разделение их. wuxuu yiri Dr. Amir waa makhluuqa Ilaahay nooc doono inuu sameyn karo ayay muujinaysaa waxay muujinaysaa cilmiga Ilaahay iyo takaaliifta oo bini aadanka uu saaro waa wax hadda ka hor dhici jiray haddana dhaca waxaa loo baahan yahay hadda wax laba beer ayuu leeyahay laba wadne saddex kiliyood sanbabka mid walba sababkiisu leeyahay wuxuu leeyahay saddex lugood waa wax u baahan ummaddu inay iska kaashato dawladda la kaashato hay'adda la kaashato inta wax looga qaban karo awoodayada markaan fiiriyo heerka dalkan ma aha in dibadaha lala kaashado waxa aan ku ogahay in arrimahan oo kala gali jireen meelo badan ay jirtaan iyo Germania ayaan ku mataqaanaa talinaya in lala kaashado بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka sheegayaa kulli anaga maamulku baan nahay Umma Hospital ilmahan yar ee soo degan halkan loogu keenay wax hadda aan halkan kaga qaban karno ama wadanka Soomaaliya laga qaban karo ma jiraan kulli sidii ay gudoomiyaha iyo dadkii ugu horeeyay ay sheegeen waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo dalka dibadiisa marka de mucjizaadka rabbigay bay kamid tahay waxaan hadda meesha ku aragno waxaan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed haday dal jirtay haday dibadda jiraanba in ay wax lala soo gaaro ilmahaasi haday dhaqaale noqoto haday cilmi kala noqoto haday dhaqaatiir ba dibadaha jira oo ayaga naftooda naga faa'iideyn karnaa dawladda Soomaaliyeed naftigeeda waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay talaabo xoog leh ay ka geysato inta aan baan anaga ku soo koobileen insha Allah wax hadda aan ka ahayn inaanu la tacaalno nolol maalmeedkooda waxaan ka ahayn inta aan wax ugu qaban karno ma jiraan